ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه السلام. waxaan dhammaan ka soo qayb galayaasha xafladda daahfurka iyo saamileydii hore loola joogtay u sheegista loo sheegayo faa'iidadoodii ee aad nagala soo qayb gasheen dhammaan mansabka ku fadhido uu qof kasta oo maaragtay xafladda ka soo qayb gala uu ku fadhiyo waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanta kadib waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo allah mahad dhammaanteed ilaahay bay u sugnaatay casa wajalla isugu kan keenay runtii xafladdaas sidii raggii iga horreeyey ay ka dhawaajiyeen leydh macaan oo nabad aad ku fadhidaan runtii waa wax ilaahay lagu mahadiyo mahadda ilaahayna lama koobi karo fa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa haddaan idhaahno waan koobinaayo nabad baan ku koobinaa waan koobinaayo waxaan ku koobinaa qabow iyo raaxa aan u fadhino ma koobi karno haddaynu isu tagno oo tirino maanta oo dhan marka mahad naq aan la koobi karin baan ilaahay uga mahad celinaynaa nacamkiisa oo dhan. waxaan ka mahad celinayaa ajiibista aad soo ajiibteen inaad nagala soo qayb gashaan iyo yeedhistii aan idiin yeedhnay inaad nagala soo qayb gashaan iyadana runtii waan ka mahad celinayaa. waxaan halkan uga mahad celinayaa baxda saxaafadda runtii soo qabanqaabiyey xafladda quruxda badan waxaas oo leydhaa ilaa shalay ayaa shaqadaas lagu qabtay aad baan uga mahad celinayaa qabanqaabiyayaasha iyo bahda meediyaha. waxaa kaloo halkan uga mahad celinayaa abwaanadii runtii ra'yigooda ku cabiray maaragtay xigmadaysnaa halkanaan uga mahad celinayaa. waxaa kaloo halkan uga mahad celinayaa hooyadii soomaaliyeed ka hadashay aad baan uga mahad celinayaa sida sharafta leh ee ay maaragtay noo garab istaagtay weliba noo ballan qaaday inay ka mid noqon doonto shareholderska kambaniga. ujeedka xafladdan aan isugu kin yeedhna wuxuu ahaa waa markii labaad oo aan furayno sheer la furay shirkadda sanadkii 2019 shirkaddu dividends waxay u qaybisay 8%. sanadkii 2020 oo hadda ahna shirkaddu waxay dividend ahaan u qaybisay 5% ayay faa'iiday waa wax ku dhow labanlaab ku dhow qaybinta aan qaybinay waxna maanaan ku celin qof walba sidii sanadkii hore waxaa loogu celiyey akownkiisa. marka kambani koraya oo kobcaya weeye waxaan maaragtay idinku yeedhnay inaan horta dadkii hore inaan maaragtay u sheegno faa'iidadoodii qof walbana akownkiisa loogu shubi doono haddii ilaha yidhaahdo. waxaa kaloo aan rabnay inaan ummadda soomaaliyeed ee kale dad kasta oo deegaankiisa qof kasta oo deegaankiisa inaan ugu tagno oon idhaahno wax ku darso wax ku yaalo macmiilkii horow waxaad noqotaa ownerkii kambaniga. qofku taawarka ka ag taagna inuu yeesho guriga ka agdhisanna inuu isagu leeyahay adeegga uu ku hadlayo kolley uu hadli lahaa adeegga uu ku hadlayana inay wax uga soo noqdaan faa'iido uga soo noqoto ayaan idiin casuunay inaad dadkii deegaanka reer Kismaayo aad ka mid noqotaan shirkaddii inaad ka mid noqotaan baan idinku casuunay. waxaan rajaynayaa biidni illaahi tacaala kariim inaad ka mid noqon doontaan dadkii hore uga mid noqday wuxuuda allaha u barakeeyo annagana ilaahay maaragtay hanagu xil tiro. waxaan rabaa intaa kadib dhib badan baa jira waddanka oo xanuunno ah baa jira abaaraa jira ilaahay haynaga kor qaado xanuunada jirana ilaahay haynaga kor qaado roob iyo nimcana ilaahay hayna siiyo. taladii aadna siiseen waan qaadanaynaa biidni illaahi tacaala kariim talooyinkii aadna siiseen oo dhan waan soo dhawaynaynaa
waxaan rabaa hal eray inaan kaga noqdo doctorka warkiisii ahaa in dalka wax lagu soo celiyo. waxaan rabaa halkan inaan ka sheego dahabshiil waa ownerka Somtel. dahabshiil group baa la yiraahdaa, waa xawaalad, waa bangi, waa telefoon. bangiga dahabshiil Kismaayo wuxuu ku maalgeliyey waxaa dhinacayga taagan dahabshiil group madaxii jubbooyinka isagaa sheegi doona, laakiin waxaan rabaa inaan idinla wadaago lacag 3,700,000 ah oo maalgelin ah in dadka reer Kismaayo la geliyey, taas oo macnaheedu yahay ganacsi kasta oo jiray waan la inject gareeyey. marka ganacsi yimaado iyo dhaqdhaqaaq ayaa dawladduna waxay heshaa canshuurteeda. dhinacii dawladdana positive bay uga tahay. mas-uuliyadda dawladdana waxaa ka mid ah in ay dadka u keento cid wax invest garaysata, si dadka ay mas-uulka ka tahay u noqdaan dad ka baxa wax la-aanta. faqri ma odhan karna, laakiin wax la-aanta in laga baxo. waynu wada noolahay Soomaalidu, kii Ilaahay wax siiyey waxaa ku ag nool intaas maaragtay. marka waxaan rabaa halkan inaan ka iftiimiyo horeyna dahabshiil group wuxuu u garab taagnaa reer Kismaayo. haddana waxaan idinla soconnaa waxay tahay kolley waad hadli lahayd, service aad u baahnayd baan wadnaa. servicekii aad u baahnayd waxaad u samaysaa faa'iido ka hel, kambanigiina wax ku yeelo. haddaad customer ahayd owner isu bedel. intaasaan maaragtay rabaa inaan sheego. waan aad baan idinkaga mahad celinaya aqbalaadda. waxaan kaloo rabaa inaan ka mahad celiyo runtii soo dhaweyn badan baan la kulannay oo dad aan naqaano iyo dad aanaan aqooninba waan maaragtay ka mahad celinaynaa. waxaan aad uga maaragtay mahad celinayaa culimmadii halkan soo istaagtay. aad baan uga mahad celinayaa culimmada, jazakumullahu khayran baan leeyahay. waxaan rabaa inaan mikrofoonka ku wareejiyo walaalkay saaxiibkay Cabdullaahi si warbixin intaa ka dheer. Soomaalidu waxay tidhaahdaa haddii waxay yidhaahdaan lagu sheelana waa la is sheegaa, haddii lagu sheegana waa la is sheelaa.